inay ka aamusta dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed iyo asxaabta TikTok dhamaantooda iyo heer YouTube intaba waa arrin ay ka jiifteen ma aqaan macabsiha oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad ila jeclaato insha Allah taala waxana ka codsaa warahmatullahi wabarakatuh asxaabtani salaam dhamaantiin meel walba adduunka joogtaan asxaabta hadda aragtaan mar saaxiibkiina ma isbuqtido meelahan soo fadhiistay oo haddana sikadiis ku hadlaa waxa waa arrin muhiim ah oo ka hadlaa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo walaalkeen Bilaal Bulshaabi oo lagu haysto magaalada Hargeysa xabsiga ku xiran yahay ma garanayo wuxuu ku xiran yahay laakiin dadka arrimaha hadal hayaan badanaa ee dhaan waxa ku xiran yahay waxa waaye in uu maqaayada soo fadhiyo calanka Soomaaliya shax loogu soo sawiro videos ka soo duubay inta si lagu haysto laakiin wax xaqiiq ah ay lahayd 100% ka ma lahan laakiin arrintaas waxa waa arrin ay ka aamusta dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed iyo asxaabta TikTok dhamaantooda iyo heer YouTube intaba waa arrin ay ka jiifteen ma aqaan macabsiha u geysay mise dan kale u geysay anigoo inta la yaabana haddana waxaa arkay video haddana magaalada sii wareegayo videogaas oo la dhahayo Bilaal Bulshaabi hooyadiis maxaa la sheeg waxay u dirtay hadal maxaa la sheeg madaxweynaha dalka Soomaaliland okay Soomaaliland ayada u dirtay wax kamid ah il daawada indhiina ku arka wiilkaas Bilaal Bulshaabi la yiraahdo magaciisa caadigaana ah Cabduqaadir Cali Maxamuud idinka codsanaya mudane madaxweyne waxaan ka codsanayaa adigoo ah musabiixi aan ka codsanayaa insha Allah taala inaad ii soo dayso wiilkaas waana agoon cid kale oo maanta adaa aabihi jooga waxaan ka rabaa inaad ii soo dayso agoonnimana ku soo korsho agoonnimana ku soo korsho aan ka codsanayaa inaad mudane aad ii soo dayso musabiixi madaxweynaha musabiixi adaan ka codsaday waa ka codsado codsiga iga tahay waa ku bariyaa kunya kowjoor waxaan ka rabaa cunugaas inaad ii soo dayso amaalmarintaadana lama gaari karo marka waxaan rabaa sidan jecelnahay oo ummadda aad cunugaaga iyo la jeceshahay inaad ila jeclaato insha Allah taala waxana ka codsaa okay waa aragteen oo meelna videogaas 1 minute oo ahay waxa ka soo helay TikTok marka qofka bini'aadanka haduu dambi gal xataa maxaa la sheeg dambigiisa uu maraa dib ma lahan laakiinse ka waran qof hooyadiis ee soo hadashay hooyadiis ee soo calaashay runta sheegtay dhahdo wiilkii wax dambi ma lahan dhahdo wiilkii wiil agoon waay dhahdo ana oo soo silco soo dhawr jabay oo ah wiil hooyadiis u xamaalnayo oo masaakiin wax dhibaato aan geysan oo ilaa hadda wax xumaatay aan lagu ogeyn wiil fiican oo aqli badan inuu yahay aana ka dhamka warqabno maadaama social media dadka la socda kamid ahay marka calayta xal maxaa la sheeg arrinkaas Soomaaliyeed waa ka jiifateen maxaa la sheeg insha Allah taala video fiican oo ka soo sameey doona anako tiro badan anako dad badan anako u dagaalmayna anaka soo banaan bixi doona insha Allah taala waa inaa u istaagnaa ninkaas xirneero hadana anaka garabka soo qabsan doono dadkiina Soomaaliya joogo u dagaalama ninkaas dadka Soomaaliland joogo u dagaalama ninkaas wax dambi ma lagu haysto wax qalad ah lagu haystaa maxaa la sheeg u damqo xitaa hadii xataa uu dambi galay u damqo hooyo wiil uu yahay intaas sanayso korsanaysa xiligu wax uu qabal hayo orod iyo dadaal oo hooyadiis u wado daraadiis waxa la dhahay sheeg lagu xiray Soomaaliya marka maxaa la dhahay sheeg Soomaali Maxamed dhamaantiina waxaan iga codsanayaa inaa u kacdin Bilaal Bulshaabi. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.